Salaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaantiina. Fiidiyogan waxaan idinku talagalay inaan idinku soo koobo dhammaan macluumaadka ku saabsan shirkadda Bluefix. Ayaantan waxaan gruubkeena Telegramka aad iyo aad igu soo farbatay su'aalaha la iga soo weydiinayo. Dhammaan ardayda iyo dadka xiiseynaya barnaamijkan rabaan inay warbixin aad iyo aad u farbateen. Sidaas awgeed ayaa igu dhalatay inaan fiidiyogan aan idin sameeyo. Fiidiyogan insha Allah wuxuu noqon doonaa fiidiyo qofkii nagu cusub iyo qofkii hore noogu jirayba dhammaan macluumaadka aan ku sheegi doono uu ka fahmi doono dhammaan shirkadda waxyaabaha ay bixiso. Insha Allah fiidiyogan waxaan kusoo koobi doonaa dhammaan xogta macluumaadka iyo waxyaabaha ugu baahan tahay sida waa maxay shirkadda Bluefix, waxyaabaha ay qabato, akoomanka maalgashi ee bixiso, sida lacagaha withdrawalka loo helayo, sida faa'iidooyinka loo qaybsanayo, loosaaska la ogol yahay, lacagaha la isku sarifi karo, shirkadda wax jahlan jadka may ka qaada. Dhammaan waxyaabaha ugu baahan tahay barnaamijkan ayaad ugu baahan tahay shirkadda Bluefix inay ka ogaatid ayaan kugu sharxi doonaa. Ayaantan waxaa aad iyo aad bulshada Soomaaliyeed u wada xiisay shirkaddan, waxaana aad u soo farbadinayo dadku ku soo biiraya shirkaddan maadaama ay shirkadaha kale aad iyo aad ay ugu duwan tahay, fursadaha ay leedahayna ay yihiin fursado aad iyo aad u baaxad weyn. Sidaas darteed fiidiyogan inoo bilaaba. Sida u jeedin presentationka ama slide-ka waxaa soo diyaariyay qodobo aan is leeyahay aleelahay qofkii cusub iyo qofkii horeba warbixin aad iyo aad u weyn ayuu ka heli doonaa. So page-keena koowaad waxaa noogu qoran kusoo dhawaaw Bluefix, we trade, we share, we connect. So waxaan u gudbi doonaa slide-keeni qaybtii labaad. Hal mar aan zoom soo geliyo si qof waliba uu si nadiif ah oo ugu arko slide-ka. So haddii aan u gudubno qaybta labaad, waa maxay Bluefix? Bluefix waa shirkad maalgashi raadinaysa ganacsato ku ganacsada akoomanka maalgashan eenu bixino. Shirkaddu waxay bixisaa akoon real ah adigoo aan laga qaadin wax imtixaan ah. Waxaad bixin doontaa kaliya lacagta ijaarka bil walba 30 beri kadib. Ganacsadaha si uu ula soo baxo faa'iidada uu sameeyo waxaa qasab ah inuu sameeyo faa'iido 5% ama ka badan ah. Haddii aad khasaariso 10% ama akoonka aad hoos u dhac inta la eg sameyso waxaa laga xiri doonaa akoonka. So haddii aan hadalkan meesha ku qoran aan concept fiican aan kaan siiyo, shirkadda Bluefix waa shirkad laga leeyahay dalka Ingiriiska. So waxaana la aasaasay 2015. Waa shirkadaha maalgashiga bixiyo ama shirkadaha loo yaqaano prop firmska oo ah shirkadaha dadka suuqa aqoonta u leh oo forex aqoon fiican u leh, aanan haysanin lacag akooma maalgashan ama aanan haysanin lacaga fiican ayay maalgelin u sameeyaan. So shirkaddan waxay shirkadaha kale ugu duwan tahay, ma jirto horta ugu horeen wax imtixaan ah ama wax laga qaadi doono ma jirto. Taasi waa midda keentay ayaantan in aad iyo aad ay Soomaalida u hadlayaan shirkaddan. Marka shirkaddani waa shirkad maalgashi bixiso raadinaysana ganacsato aqoon u leh. Suuqani waa ganacsato aanan haysanin akoomo waaweyn ah, waxay ku siin doonaan akoono. So akoomankaas aad ku trade gareyn doontaa kadib lacagtii ka soo baxdana profitka ayaa la wada qaybsan doonaa. So shirkaddu waxay bixisaa akoomo real ah, ma jirto akoon demo ah lagu dhiibi doono. Akoonka lagu dhiibi doono waa akoon real ah. Akoomanka ay bixiyaan dhammaantoodana slide-ka qaybta xiga ayaan kugu sharxi doonaa. So qaybtan waxaan kaga hadlayaa waa maxay Bluefix-ka. So Bluefix waa shirkad noocaas ah oo Ingiriiskaas laga leeyahay oo maalgashi bixiso raadinaysana ganacsato suuqa aqoon u leh faa'iidana sameyn karo. So sidaas maadaama imtixaan qofka laga qaadaynin oo wax imtixaan laga qaadaynin, waa dareemi kartaa qof waliba ayaa meesha iska imaanayo oo iskaga soo biirayo. Laakiin waxaa jirto si dadkaas loo kala saaro, waxaa jirto khidmad bil walba la iska qaadi doono ama 30 beri kadib la iska qaadi doono. Tusaale ahaan ka soo qaad shirkad waa ku soo biirtay. Shirkadda markaad ku soo biirto akoonka waa lagu dhiibay, waxaa jiro lacag bille aad bixin doonto ama akoonka ka soo qaad inuu ijaar kuu yahay oo aad 30 beri kadib markay dhamaato aad lacagta subscription-ka akoonkaas aad bixin doonto. So waxaa jirto lacag 30 beri kadib laga qaadi doono ama khidmadda akoonka oo bil walba laga rabo. So ganacsadaha marka shirkadda qofku uu ku soo biiro akoonka loo dhiibo oo lacagtii bixiyo oo akoonkii maalgashana uu helo, waxaa laga rabaa qofka inuu sameeyo faa'iido 5% ah akoonkii lagu dhiibo
oo markaas shirkadda ay kuu dhiibto. 3 nooc akoon ayay bixisaa, 3daas nooc akoon gadaal ayaan ugu hadli doonaa. So akoomankaas lagu dhiibo waxaa lagaa rabaa keliya 5% faa'iidaha inaad sameyso. Kasoo qaad haddii aad maanta akoonkii lagu dhiibo oo aad maanta 5% faa'iida ama 5% faa'iida ah aad akoonkaas kor ugu qaado, isla maanta ayaa lacagtaada la soo baxaysa oo withdrawal ayaad dhehaysaa 50-50 konton ayaa loo kala qaadanayaa. So qaybtaasna waxaan rajeynayaa qaybtii afaraad inaan si fiican iskula fahnay. Waxaa jirto ama laga rabaa qofku markuu akoonka loo dhiibo in 5% faa'iidaha uu sameeyo, 5% faa'iidaha uu sameeyana loo qaybsan doonaa 50-50. marka qaybta shanaad haddaan usoo gudubno, haddii aad 10% khasaare gaarsiisana akoonka way kaa xiri doonaan oo meeshaas ayaa akoonka lagaaga xiri doonaa oo shirkadda xubinnimadeedii waa lagaa cancel gareyn doonaa. marka haddii aan isku soo koobo hadalkoo idil, shirkadda Bluefix waa shirkad maalgashi bixiso, raadinaysa ganacsato awood u leh inay suuqaani lacag ka sameyn karaan ama sameyn karaan 5% faa'iido ah. So ganacsadahaasi uu lacagtiisa uu la soo baxo, waxaa laga rabaa akoonkii loo dhiibay inuu 5% ah uu faa'iido ah uu ka sameeyo. faa'iidadaasna waxaa loo qaybsan doonaa 50-50%. sidoo kale haddii 10% uu khasaaraha akoonka uu gaarsiiyo, akoonka waa laga xiri doonaa qofkaasi. So waxaana jirto qofka laga rabaa khidmad bil walba oo bixin doono 30 bil kadib marka ay dhamaato, waxaa laga rabaa akoonka ijaarkiisa inuu bixiyo. I hope ama waxaan rajeynaa in qodobkan aan si fiican u iskula fahnay. waxaan gudub doonaa qaybta labaad oo ah shirkadda nooca akoonka maalgashi ee bixiso. So SlideShareka qaybtiisa labaad waxaan uga hadli doonaa akoomanka shirkadda ay bixiso. sida sawirkan ay ugu jeediin, waxaa inta idinka muuqdo 3 sawir oo ah 3 nooc akoon ay shirkadda bixiso. nooca koowaad akoonka ay shirkadda bixiso waxaa loo yaqaanaa lead akoon. waa akoon ay ku jirto 25,000 qiimaha qofka laga rabana ama qiimaha qofka inuu bixiyo laga rabo waa 99 baan oo u dhigmata dollar ahaan $145. So akoonka labaad waxaa loo yaqaanaa asna waa pro akoon, waxaa ku jirto $50,000 qiimaha laga rabo oo ina ku iibsanaysidna waa $249. akoonka saddexaad waa akoon islaamic akoon ah oo waafaqsan shareecada islaamka. So akoonkan waa asina akoon ay ku jirto $50,000 qiimihiisana ama qiimaha aad ku iibsan kartidna waa $329. So sawirka u jeediin waa kana akoonka lead akoonka, akoonka broga iyo akoonka islaamic akoonka. So shirkadda waxay bixisaa marka 3 nooc akoon. haddii aan si fiican kugu faahfaahsiyo, akoonkan lead akoonka ah waa akoon 25,000 ay ku jirto. So akoomankan 3 akoon horta qaacidooyinka iyo shuruucda laga rabo waxaa ka mid ah 3 akoon waxaa lagu ogol yahay inaad 5 bir suuqa oo furan yahay aad trade ka gali karto, trade haysan karto. tusaale ahaan maalinta Isniinta trade-ka aad gasho waxaad toos u xiri xirtaa habeenkii Jimcaha. marka lama ogolo weekendiga inaad trade haysid. waa sharciga koowaad. weekendiga lama ogolo wax trade ah inaad haysid. oo weekendiga habeenkii Jimcaha markuu suuqa sii xirmayo waxaa laga rabaa inaad trade-yadaadu idil aad wada xirto. So akoonkan pro akoonka, tusaale ahaan haddii aad lead akoon aad qaadato, waxaa laga rabaa inaad sameyso 5% faa'iido ah oo u dhigmata $1,250. tusaale ka soo qaad waxaad iska diiwaan gelisay akoonka lead akoonka. So faa'iido laga rabana waa 5% oo u dhigmata $1,250. marka $1,250 markii aad lead akoonka ka sameyso waxaa loo qaybsan doonaa 50-50. okay, $1,250 kaas waxaa loo qaybsan doonaa 2 50-50. 50% adaa iskale, 50% shirkaddan adaa iskale. marka waxaa kugu soo aadi doonto $625 adiga iskale, $625 shirkadda ayaa iskale. marka akoonkan pro akoonka asiga haddii aan imaano, markaad iska diiwaan geliso aad lacagtan $249 bank aad bixiso, asigana waxaa lagu ogol yahay 5 bir inaad haysato, laakiin laguma ogolo weekendiga. waa isku mid dhamaantood. weekendiga lama ogolo inaad trade sii haysato. marka akoonkan asigana waxaa laga rabaa 5% faa'iido inaad sameyso oo u dhigmato $2,500. $2,500 markaad sameysto waxaa loo qaybsan doonaa 50-50. laba loo qaybsan doonaa $1,250 adiga ayaa qaadan doono, $1,250 shirkadda ayaa qaadan doonto. So akoonka islaamic akoonka asigana waa isku mid
oo habeenkii trade-yada waa haysan kartaa laakiin weekendiga lama ogolo. lacagta lagaa rabana waa 329 pound. so akoonkan isagana faa'iidada lagaa rabo inaad sameyso waa 5%. akoomanko idil waxaa lagaa rabaa inaad 5% faa'iida aad sameyso si lacagtaada aad usoo baxsato. marka withdrawalka 5% wax ka yar ma sameyn kartid. tusaale ahaan haddii 3% aad akoonkii kordhiso uu subscription-kaaga uu kaa dhaco oo muddada waqtiga ee kaa dhamaato 7 beri, dhib ma laha. bisha kale soo xogto haddana lacagtii ijaarka akoonkaa bixinaysa waxa uu soo laaban doontaa akoonkaaga 3%kii lacagtii oo aad bishii hore aad sameysay ay kugu jirto. marka meeshaad kasii wadi kartaa oo 2% kala bishaas kale kor usii qaadaysaa, kadibna lacagtaada waa lasoo bixi kartaa. marka faa'iido walibo oo 5% ka badan ama 5% ah kaliya ayaad la bixi kartaa. marka 5% faa'iido ka yar lama bixi kartid. hadduu subscription-ka uu kaa dhacan bisheeda kale ayaa tagaysaa, lacagta subscription-ka bixinaysaa meeshaada. marka waxaa rajeynaa inaad si fiican aad hadalkan asigana aad u fahanteen. waxaa lagu ogolyahay 5% target faa'iidaha inaad gaarsiiso si lacagtaada aad ula soo baxdo. waxaa lagu ogolyahay 10% oo khasaaro ah inaad akoonka gaarsiiso si akoonka lagaaga xiro. marka waxaa kaloo jirto ee shirkadan ku fiican tahay haddii aad tusaale ahaan khasaaro gasho oo aad kasoo qaad khasaaradaada waa 10%, 5% khasaare ayaad gaarsiisay. tusaale ahaan waxaad khasaarisay akoonkii $2,500 ayaad hal akoon ka mid akoonkan islaamiga akoonka $2,500 oo u dhigmata 5% ayaa khasaare gaarsiisay, bishiina way kugu dhamaatay. marka shirkadda waxay leedahay wax loo yaqaano revenance oo ah in lacag £50 ama $70 ahaan oo USD u dhigmata aad bixiso, khasaaradaadana lagu soo kabo oo aad bishii kale hesho akoonkii $50,000 ay ku jirto oo sidiis ah oo khasaaradaada dib loo soo kabo. laakiin waxay ku xiran tahay markaad soo dalbatid oo aad khasaare gaarsiiso, waxaa jirto website-ka refinance-gaas ayaa tagaysaa, waa dalbanaysaa lacagta intaadan bixin waa dalbanaysaa. marka shirkadda ayaga ku qiimeynayaan waxay fiirin doonaa trade-yada aad gashay, nidaamka qaabka u trade gareynaysay. hadday ku arkaan nin isticmaalaya istiraatiijo fiican, riskigiisana riski fiican, risk management barbar risk management isticmaalayay oo si fiican u waday, laakiin suuqii iyo waxaas uu ka danaaniyay waa lagu ogolaanaya oo khasaaradaada waa lasoo kabaya. laakiin haddii lagu arko in qof aanan balayn lahayn oo akoonka trade badan iska gelaya, khasaare badan iska geysanayay, oo win rate-kiisa ama trade-yadu gale trade-yadu ku guuleystay, trade-yadu uu ku khasaaray ay aad u fara badan yihiin, trade-yadu uu ku khasaaray ay ku arkaan, hadday ku arkaan markaas inaad tahay qof aadan awoodin inaad akoonkooda ku trade garee karo, faa'iido ka sameyn karo, aadan dheheen way ku diidi doonaan oo waxay ku dhihi doonaan refinance-gaas ma sameyn doono. marka go-aanka waxaa iskale markaad soo dalbato teamka risk management-ga akoomanka maamul ayaa dib u fiirin doono, waa lagu qiimeyn doonaa. haddii loo arko inaad tahay qof fiican laakiin uu suuqi ka hiiliyay oo suuqii sometimes waa dareemi kartaa suuqu iska fadhiyaa dhaqaaqi wax lahayn, waa lagu kabi doonaa oo khasaaradaada oo waxaad heli doontaa akoonka oo 50k ah oo khasaaradii aad geysay lagu soo buuxiyey oo sidiisa ayaad heli doontaa. marka waxaa kaloo jiro oo akoomankani ay ku kala duwan yihiin. akoonkan pro akoonka islaamiga akoonka waxay leeyihiin growth wax loo yaqaano ama akoonka inaad korin kartid. haddii aad hal bil aad 10% aad sameyso oo 10% aad sameyso, akoonkaaga waa lagu dhabalgareyn doonaa. waa keliya akoonka broga iyo akoonka islaamiga, maaha akoonka leedka oo 25,000 ay ku jirto. waxaa keliya akoonka growth iska leh ama koriimada akoonka iska leh waa akoonkan pro akoonka iyo akoonka islaamiga ah, waa akoonka islaamigan iyo akoonkan broga. marka akoonka leedka ma laha wax koriimo ah akoonka 25,000. marka haddii aad 10% bil sameyso waa lagu dawalgareyn doonaa akoonkaaga, meeshii 50,000 ay ka aheeday waxaa lagaaga dhigi doonaa $100,000 ilaa aad ka gaarto darajada ugu dambeysa oo ah $1 milyan in lagu dhiibo. darajadaas haddii aad gaarto waxaad ka mid noqon doontaa fund managerada ama dadka lacagaha waaweynka shirkadda u hayo. waxaa lagaa joojin doonaa subscription oo idil in lagaa qaado, faa'iidadaadana xilligaa rabtaa la bixi doontaa. so asina waxaan rajeynayaa inaan akoomanka iyo qaabkay u shaqeeyaan in dhammaantood aan isla fahnay. haddana waxaan u gudbi doonaa qaybka akoomada 1 milyan darajada qaybta aad ku gaari laheeday.
So sida ujeediin darajada 1 milyan waxaa lagu gaaraa. Sidoo kale waxaad ganacsatada haysta akoonka 50k qof waliba oo sameeya hal bil 10% faa'iido ah waxaa loo double gareyn doonaa akoonka uu haysto waxaana looga dhigi doonaa $100,000 ilaa uu ka gaaro 1 milyan oo dollar. Waa sida hore aan kugu sheegay waxaa jiri doono stage ilaa 4 stage uu qofka uu mari doono. Sida ujeediin stage-ka koowaad waa qofkii isdiiwaan geliyay waa akoonkii Pro-ga ama Islamic akoonka 50k ku jirta iska diiwaan geliyay. Haddii uu 10% sameeyo waxaa loo double gareyn doonaa akoonkiisa oo wuxuu noqon doonaa ama gaari doonaa stage-kii labaad oo wuxuu hayn doonaa loogu dhigi doonaa akoon ay ku jirto $100,000. waa stage 2 $100,000 sameysay. So stage 3 sa ujeediin asigana qofkii hadduu 10% uu sameeyo waa loo sii double gareyn doonaa oo akoonka waxaa loogu dhigi doonaa $200,000. So mar walba aad 10% aad sameyso adigoo haysta akoonka 50k ah waa lagu double gareyn doonaa akoonkaaga ilaa aad ka gaarto darajada 1 milyan oo dollar. So waxaa rajeynaa qodobkan asagana inaan isla fahnay darajada 1 milyan oo dollar kaliya waxaa lagu gaari doonaa inaad 10% faa'iido ah aad bil walba sameyso. 10% marka suuqa loo fiiriyo waa qofka aqoonta u leh wax iska easy uu sameyn karo. So haddii aad aqoontii u leedahay suuqa dadku isku mid ma hadda laga yaabaa 5% faa'iido inay hal maalin 2 maalin 3 maalin hal week ku sameeyaan. Dadna waxaa laga yaabaa inay 2 bil 3 bil ku qaadato. Dadna waxaa laga yaabaa inay ku qaadato muddo. Marka muddo qof walba waxay ku xiran tahay sida aqoonta uu suuqa u leeyahay iyo sida qofka uu ugu xariifsan yahay suuqan una sameyn karo faa'iido. Marka haddii aad sidaas sameyso oo 4 darajo aad soo dhaafto waxaad ka mid noqon doontaa dadka fund managerada ee loo yaqaano oo shirkadda ugu weyn oo waxaa lagu dhiibi doonaa 1 milyan oo dollar. halkaas milyan oo dollar hadii lagu dhiibo waxaa meesha ka bixi doono in wax subscription ah bil aad bixiso. So waxaad ka mid noqon doontaa dadka shirkadda ugu waaweyn oo lacagahooda maamulo seminaaro iyo experience oo shirkadda xaggooda ka socdo iyo aqoontaada in la kobciyo ayaa team shirkadda ka socdo ku imaan doonaan. Teamkaas ayaa mar walba xooga saari doona sida aqoontaada iyo qaabkii baleen fiican lagu sii lahay talooyin lagu sii lahay. Marka 4 stage ayaad soo mari doontaa si aad ku gaarto 1 milyan oo dollar aad uga mid noqoto shirkadda fund manageradooda. So haddii aan kasii gudbo qaybta kale qaybtani waxa uga hadli doonaa sida loo qaybsado faa'iidada profitka sida loo qaybsado. Horey waxaan jeclahay inaan carabka ugu dhuftay aan horey idinku soo sheegay faa'iido waliba oo qofka uu sameeyo waxaa loo qaybsan doonaa 50% faa'iidada ugu yar oo qofka uu sameyn karana si uu withdrawal u sameeyo waa 5% ah. Faa'iido waliba aad sameyso waxaa loo qaybsan doonaa 50-50 xitaa haddii aad sameyso wax ka badan 5% ah. So ayadana waxaa rajeynaa qodobkan inaan isla fahnay. aan gudubno qodobka xiga. Ganacsadaha si uu u helo faa'iidada uu sameeyay isla bisha waa in withdrawalka uu soo dalbadaa bisha 20keeda si uu u helo 25 bisha lacagtiisa. So qodobkani waa qodob aad iyo aad u fara badan ay su'aalo iga yimaadeen xagga groupkeena Telegramka oo aan Bluefix-ka aan ku leenahay. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay ama videogan uu yahay marka ugu horeysa aad daawanayso linkiga description-ka ayaad ka heli doontaa groupka Telegramka ee Bluefix Soomaaliya. halkaas ku soo biir halkaas ayaad ku ogaan doontaa macluumaadka idil oo shirkadda ku cusub ay ku soo kororta. Sidoo kale wixii caawinaad ah oo aad shirkadda ugu baahnaataan ama su'aalaha ahaadaan ama wax allaal wixii aad ugu baahnaato xagga shirkadda groupkaas ayaad iga soo weydiin doontaa. groupkaasna linkiga description-ka ayaad ka heli doontaa. groupka waxaa ku jira dhammaan ganacsatada ee Bluefix ee ka ganacsada akoomankooda shirkadda maalgashan. waa group ay isku weydaarsadaan aqoontooda iyo analyskooda. waa group ay ku wada sheekaystaan. So haddii aad nagu cusub tahay fadlan groupkaas ku soo biir linkiga description-ka ayaad ka heli doontaa. So aan soo laabto su'aashan waa su'aashii ugu weydiintii badneyd oo dadka badan ay isoo weydiinayeen. So haddii aan qaab cilmiyeysan ama qaab qof walba fahmi karo aan u fahansiiyo ayaa waxay tahay qofka tusaale akoonka maanta waxaa dalbatay 1 bisha ayaa dalbatay 1 bishii ayaa akoonkii lagu siiyay. marka qof waliba oo akoonka haysto
waxaa lagaa rabaa inaad faa'iido aad ku sameyso si aad bishaas lacagtaada u hesho 1 bisha ilaa 20 bisha. Micnaheeda waxay tahay 20 bil waliba waa marka xilliga ugu dambeysa oo withdrawal la soo dalbanayo. Haddii aad 20 wixii ka dambe ama 21 aad soo dalbato, waa soo dalban kartaa, wixii ka dambeeyay kulli waa soo dalban kartaa, laakiin bisha kale 25 ayaa faa'iidada oo lacagtaada akoonkaaga lagu soo shubi doonaa. Marka 20 bisha waa xilliga ugu dambeyso oo dadka withdrawalka ay soo dalbadaan bishaasi. Isla bisha 25keeda traderska lacagtoodii waa loo wada diraa. Marka si lacagtaadii profitka aad u hesho, waxaa qasab ah in 20 bishii inta lagu gaarin ka hor aad targetka gaarsiiso, aad kadib withdrawalkii dalbato si 25 bishaas aad lacagtaada u hesho. Haddii aad gaarsiin weysana dhib ma laha, oo 25 ama 30 bisha ama 28 targetkaaga aad gaarsiiso, withdrawalka waa dalban kartaa, lacagtaadana waxay kuu soo dhici doontaa 25 bisha xigto, maadaama 20 bisha la qorsheeyay ama 20 bishaas ee la qorsheeyay ay tahay traderska bishaasi targetka gaarsiiya heli doonaan faa'iidadooda isla bishaas. waxaan rajeynaa inaan si fiican iskula fahanay. 20 bil walba waa xilliga ugu dambeyso ee qofka withdrawalka soo dalbado. 25kani dadkii 20 bisha soo dalbaday ayaa faa'iidadoodii loo diraa. 20 wixii ka dambeeyay qofkii soo dalbada withdrawalkana lacagtiisa waxaa loo soo diri doonaa 25 bisha kale. su-aasha labaad ee dadka badan ay soo weydiinayaan waxay ka mid aheeday, haddii aan 20kii wixii ka dambeeyay targetkeygii aan gaarsiiyo oo aan withdrawalkii aan dalbado, akoonkiina uu subscriptionkii iga dhaco, maxaa sameeyaa? That's easy. Shirkadda fursad kale waxay ku siinaysaa lacagtii withdrawalkii aad sameysay ama profitkaagii lagaa heeyo inaad email u dirto oo aad ku tiraahdo lacagta aan profitkii aan sameeyay iga jara lacagta akoonka. lacagta akoonka lagu hayay oo aad profitkii sameysay ayaa laga jari doonaa lacagta subscriptionkaaga, akoonkaagii waan ugu soo furi doonaa adoo wax lacag bixinin, waxaana lacagtaas laga goosan doonaa lacagta profitkaagii lagu soo diri lahay. marka ayadana taasna waxaa rajeynaa inaan fiidiyogan su-aashaasi aan ugu dhex jawaabay. haddii aan ka gudbo oo qaybta xigo aan tagno, lacagaha aad isku sarifi kartid. su-aashan su-aalo badanaa dadka isoo weydiiyeen ay aheeday, lacagaha qofka loo ogol yahay inuu isku sarafo waa 28 beeriska iyo golliga. waxaa lagu ogol yahay inaad isku sarifto dhammaan lacagaha forexka oo ah 28 beeriska lacagaha forexka ah iyo golliga. 8 beeriskan waxaa ku jira lacagaha majorka iyo lacagaha minorka dhammaantooda. marka 28 oo lacagaha beeriskooda ah iyo waxaa isku sarfi doontaa golliga. ma jirto lacaga kale oo aad isku sarfi doontid, keliya lacagahan ayaad isku sarfi doontaa. qaybtan aan u imaano oo xagga lotaska aan ugu hadlayno, lacag waliba waxay leedahay qiimo lotas ah lagu gali karo. marka qaarna loodka wuu badan karaa wuuna yaran karaa, waxayna ku xiran tahay free marginka akoonka ee ka bannaan. lotaska waa su-aalaha aadka ii soo weydiiyey. haddii aan kusii dabaqo leverage akoomanka ama shirkadda waa 1/3. akoomanka waa leveragekooda waa 1.3. su-aashan dad badan way isoo weydiiyeen lotaska walaalayaal, adigoo aadan isdhibin waxaad ku ogaan doontaa. si aan qodobkan iskula faahno, waxaan u baahannahay inaan website-ka shirkadda aan booqano, kadibna aan isla aragno shirkadda waxay ka qabto. hadda waxaad ujeediin waxaan imaanay website shirkadda ayaan imaanay. qaybta shirkadda waxaa ugu jeeda ama pagekan waxaa noogu muuqdo lacag waliba iyo lotaska aad ku gali karto. tusaale ahaan inta fiiri, qaybtan waxaa ugu jeeda akoonka 25,000 lacag waliba euro USD waxaa ku gali kartaa 0.46 euro GBP waxaa ku gali kartaa 0.6 euro GBY 46 euro CAD 46 euro CHF 48 beeriska oo akoonka 25kga ah lacag walba lagu gali karo. bartaas ayaa kaga ogaan kartaa. marka waa kan lacag walba iyo loodkooda meeshaas ayaa ka arki kartaa. qaybta xigto 50kga asiga akoonka konton haddii aad haysato, waa kana lacag walba loodsaas kala ogolyahay. euro USD waxaa lagu ogolyahay 0.93 inaad ku gashid. euro GBP ayadana waxaa lagu ogolyahay 50kga markaad haysato 0.93. asigana intaad ka arki kartaa dhammaan qeybaha
ama lotus walba oo lacag walba u isticmaali karto. Marka 25k lotuskiisa intaad ka arki kartaa, 50k lotuskiisa intaad ka arki kartaa. Marka qaybtan aan ugu imaanno, qaybtani waa lacag waliba iyo barbibkeeda dollar ahaan inta lagu dhufa karo. Marka 25,000 waa kana, akoonkii 50k waa kana. Dad badan ayaa ayagan group ku arkay oo soo weydiinaya dhahayaan ustaado lacagta trade-ka aan ku galnay, tusaalahan euro USD aan galay 20 baan target gareynay, lacagtii aan rabay profit-keygii iyo lacagtii iga soo bixi isku mid ma. waxaa sabab u ah qiimaha lacag walba barbibka. tusaale ahaan euro USD halkeeda bib ama barbibkeeda wuxuu u dhigmaa 4.8, ma garatay 4.8. marka 20 bib oo euro USD ee ku dhaqaaqday iyo 20 bib oo euro GBP ee ku dhaqaaqdo isku faa'iido ma ah. sida u jeedin hadda euro GBP barbibkeeda wuxuu la mid yahay, halkii bib wuxuu la mid yahay akoonkii oo akoonka 25k markaad haysatid $5.68 ayuu la mid yahay. soo labadan dhaqaaq marka isku mid ma noqonayaan. haddii barbibkii kan $4.8 uu yahay iyo kan hadduu barbibkiisa $5 uu yahay, waad dareemi kartaa labadood isku faa'iido ma noqonayaan. mar walbo lacagta faa'iidada rasmiga ama faa'iidada fiican aad ka samayn karto waxa waaye lacagta uu badan yahay bibkeeda, barbibkeeda dollar ahaan uu badan yahay. tusaale ahaan euro GBP ga camal waa 5.68, euro USD gana waa 4.8. marka mar walba ana waxaan kula talin lahay lacagaha dollarkooda uu badan yahay barbibkooda target ka dhigaso. tusaale ahaan euro GBP ga camal lacagooda waa badan yahay. euro GBP da waa tana, euro USD ga 25k ga waa kana, euro cat $4 waaye, euro cat mujida goldiga camal 2.2 camal waaye, mujida AUD cat camal. marka lacagaha mar walba oo barbibkooda dollar ahaan targetka inay ka dhigatid ayaa mar walba ku fiican. soo akoonka 50k hadaa imaano, kan akoonka 25,000 iyo dollar ahaan halkii barbibkiisa hadduu dhaqaaqa ayay ahayd. hadda 50,000 aan ka hadalna. marka 50,000 sida u jeedid euro USD giisa halkii dhaqaaq ama barbibkii dhaqaaqii uu sameeyo waa $9.2 waaye, waa gartaa fila. euro GBP gani halkii dhaqaaq uu sameeyo akoonkii 50k gana waxay u dhigmataa $11.36. marka lotuska adigoo aanan ku wareerin iyo barbibka adigoo aanan ku wareerin, website-ka Bluefix soo booqo, kadib waxaad ka arki doontaa macluumaadka akoonkoo idil. wax aad ugu baahan tahay ma jirto inaan afka kaalkaaga sii sheego. haddii aad website-ka soo booqato dhammaan faahfaahinta oo idil bartan ayaa ka heli doontaa. oo sida u jeedin lacagta currency pairs-kooda akoonka 25,000 lotuskiisa iyo 50k lotuskiisa, barbibka 25,000 iyo 50,000 dhammaan macluumaadka oo idilne page-kan ayaa ka heli doontaa. marka page-kan soo booqo, halkaas ayaad wixii macluumaad oo lotuska ku saabsan iyo trade walba aad ku gali karto ugu ogaan kartaa. marka hadda aan u laabano PowerPoint-geeni, waxaa jeclahay qaybtan lacagihii isku sarifka ahay, lacagaha la isku sarfayo iyo lotuska iyo leverage-ka dhammaantooda inaad si fiican ugu fahanteen. waxaan rabaa marka inaan u gudbo qaybta kale xigta. marka qaybtan ayadana waa qayb aad u muhiim ah, sidee ula bixi kartaa lacagta faa'iidada. okay, slide share-ka qaybtiisa koowaad waxaa ku qoran lacagta waxaad kula bixi kartaa markii aad gaarto 5% ama ka badan. sida hore kuugu soo sheegay, akoomankaas oo idil aad haysato waxaad withdrawal samayn kartaa keliya markii aad 5% samaysa ama ka badan aad samaysa. ka yar ah haddii aad 2% ama 3% aad samaysana lacagtaada withdraw ma samayn kartid oo ma la bixi kartid. bishii kale hadduu subscription ka dhacaan, bisha kale akoonka khidmadiisa ama lacagtiisa aad bixinaysaa. kadib haddii aad 3 bishii hore soo samaysay 2 waa ku daraysaa 5%, kadib lacagtaada ayaad la soo bixi doontaa. soo taas ayadana waxaan rajaynaa inaan iskula fahno qofka si oo lacagta ula baxo waxaa qasab ah inuu 5% faa'iido sameeyo ama ka badan. soo ganacsadaha qaybta labaad, ganacsadaha waxaa loogu baahan yahay in withdrawalka uu dalbado ka hor bisha 20-keeda si 25-ka bisha loogu soo diro faa'iidada kugu soo aadeysa. soo qodobkaani waxaan jeclahay inaan hore aan ugu soo hadlay oo ah waan hore faahfaahintiisa idin siiyay oo ah si aad markii aad withdrawalkii aad sameyso waxaa qasab ah in 20-ka bisha aad ka hor withdrawalka aad sameyso si 25-ka bisha lacagtaada u hesho. haddii kadib aad sameysana lacagtaada waxaa lagu soo diri doonaa 25-ka bisha kale ee xigta. soo qaybta saddexaad waa qaybta ugu muhiimsan, sida lacagta akoonka aad ku heli laheeday. waxaa lacagta ku heli kartaa bank transfer
qaybtan waa qaybta saddexaad ee ugu muhiimsan oo ayadan aan ugu hadlayno sida lacagtaada aad ku heli karto. Waxaa lacagta ku heli kartaa bank transfer, payable, profit money, cryptocurrency. Haddii aad Soomaaliya joogtana waxaad ku heli kartaa xawaalada Tawakal. Marka tan xawaalada Tawakal waa mid ugu fudud oo Soomaalida hadda aan badanaa xataa kula taliyo inay lacagtooda kula baxaan. bank transferka waxaa ka mid ah haddii akoomanka aad bangi ku leedahay shirkadaha Soomaaliya sida Premier Bank, Salaam Bank, bangiga kale oo Somali Bank, kuwaas haddii aad bangiyada ku leedahay, bangiyada Soomaaliya dhan haddii aad bangi ku leedahay, waxaa lagugu soo diri doonaa bangi ahaankaas lagugu soo diri doonaa, kadib lacagtaada kaarkaaga iyo waxaad kula soo bixi kartaa. Laakiin kani waxay qaadataa muddo 5 ilaa 10 biri ayay qaadataa, maadaama sida dadka caadiga ee brokerada ka ganacsada iyo forex ka ganacsada taqaani markii lacagta bank transfer soo marayso waqtiga qaadataa. Waxaana laga qaadi doonaa lacag $50 oo khidmad ah oo lacagta lagu soo diray, maadaama qofka soo dirayo ama gacanta saddexaad ee meesha soo galayso oo bangi la rabo inuu lacagta soo diro. Marka $50 waa lacag oo subscription-ka lacagta profitka bangi wax kaaga soo diray lagaaga goosan doono. Laakiin haddii aad Soomaaliya joogto waxaa fursad u leedahay xawaalada Tawakal in lagu soo diro. Xawaalada marka uma baahnid, waxaa jiro app ay xawaalada leedahay oo loo yaqaano T+ oo Tawakal Plus laga soo gaabiyay. Appkaas ayaa Play Store kala soo deegi doontaa, kadib waa iska diiwaan gelin doontaa, kadib lacagtaada appkaas ayaa lagugu soo diri doonaa. Haddii aad Soomaaliya joogtana lacagtaada waxaad kula bixi doontaa EVC ahaan, uma baahno inaad xawaalada tagid. Haddaad u baahan tahay cash ahaan waxaad tagi kartaa xawaalada Tawakal, kadib ayagaa lacagtaada u diri doontaa, ayagaa qaab cash kuu soo siin doonaan. Marka haddii aad Soomaaliya joogto, Muqdisho haddii aad joogto, EVC-gaas aad lacagtaada kula bixi kartaa. Haddii aad Kenya joogtana embassy waad kula sii bixi kartaa oo adigoo appka xawaalada isticmaalayo. Haddii aad Somaliland iyo Puntland iyo deegaanadan kale oo aad joogto ayadana markaas waxaad kula bixi kartaa adeegyada deegaanadaas ka jiro sida zaadkaas iyo lacagaha la iskugu dirdiro appka ayaad kula sii bixi kartaa. Marka qodobkaasna waxaan rajaynayaa isla fahnay. Haddii aan u gudbo qodobka afaraad, faa'iido walba aad samaysana waxaa loo qaybsan doonaa 50-50, waa sida hore aan kuugu sheegay. Marka waxaan rajaynaa qaabka lacagta ula bixi laheeday oo faa'iidadaada iyo waxa kuu soo gaari laheeday ayadana inaysan hadda iyo wax kadib ay su'aal aysan ka imaan doonin, uu qof walba si fiican u fahmin. aan u imaano qaybta xigo, shuruudaha lagaaga baahan yahay akoonka. Shuruudaha akoonka lagaaga baahan yahay, marka haddii aan imaano akoonka lagaaga baahan yahay ayagana waxaa ka mid ah inaad tahay ugu horeyn qof awoodi kara inuu faa'iido sameeyo. Horey sidaan idinku soo sheegay, shirkadda Profix waa shirkad raadinaysa ganacsato awoodi karta inay faa'iido ku sameeyaan akoomanka maalgashan ay ayagu dhiibaan. Marka shuruudda koowaad waxaa ka mid ah inaad tahay horta qof awoodi kara faa'iidana ka sameyn kara akoomanka lagu dhiibo, oo qof aqoon suuqa forex-kan u leh, aanan ku tiirsanaynin signalis iyo qof kale inuu u trade gareeyo ama account management qof kale u sameeyo. Waa inaad tahay qof awoodi kara inuu 5% faa'iido sameeyo ama suuqan aqoon u leh, aanan u baahnayn qof labaad oo kaliya asiga in computerkiisa imaado ama mobilkiisa qabsado faa'iido ka sameyn kara suuqa. shuruudda koowaad waa shuruudaas. Shuruudda labaad waa inaad bixisaa lacagta akoonka. Bixisaa. Shuruudaas ayadana waa shuruudda labaad. Waa inaad akoonka 25k ama 50k broga ama islaamka akoonka adiga aad rabtid lacagta aad akoonka bixisaa. Kadib waa inaad leedahay aqoonsi sida passportka, driver license-ga, national ID card-ka iyo wixii la mid ah. waxaa loogu baahan yahay ayadana inaad haysatid passport, driver license-ga hadaa haysatid asigana waa okay, national ID card haddii aad haysatidna waa okay iyo wixii la mid ah. Marka aniga intaan shirkadda u shaqeynayay waxaan ku arkay dad badan ee shirkadda aqbasho ama ID card-ada sida Somaliland ID card-dooda driver license-gooda ayagana shirkadda way aqbashaa. Gobolka Banaadir dadka warqadooda haysto ayadana shirkadooda way aqbashaa. Marka waxaas oo idil waad u isticmaali kartaa sida identity inuu ku yahay ama aqoonsi oo adiga aad leedahay inay tahay, waad u isticmaali kartaa. qaybta afaraad, inaad haysato warqad adresska kuna qoran magacaaga iyo adresska aad degan tahay, kuna taariikhaysan 3 bilood ee na soo dhaaftay sida bank statement ama Swift code. warqadda ayadana waxaa lagaaga baahan yahay warqad adress ah. Horta warqadan adresska badanaa dalkii ma laha warqadahan adresska
laakiin dadka dibadda joogo oo dalka ka baxsan way yaqaanaan guri walba waxaa jiro address warqad uu leeyahay. So haddii aad wadanka meel ka baxsan aad joogtid, warqadaas waa isticmaali kartaa. warqadana waxaa khasab ah in magacaaga ay ku qoran tahay, ilaahay markuu samadarnaad ay ku qoran tahay ayadana addresska aad degan tahay, 3 bilood lasoo dhaafayna ee soo baxda ee tahay warqadaas. macnaheedu waxaa ka wadaa warqadda 3 bilood keliya haddii aad haysato, 3 bilood keliya waa inay issueeda ahaataa. tusaale ahaan bishan hadda waxaa ku jirnaa, waxaa rajeynayaa April maadaama aan ku jirno bisha 4aad, warqadda aad haysatid waxaa la rabaa 3 bilood ee lasoo dhaafay inaysan ka badan. tusaale ahaan 4 bil 5 bil hadday ka badato warqadda meesha ay ku qoran tahay dheedkeeda lama aqbali doono. so 3 bilood inay ahaataa muhiim ah. ayadana qodobkaas waxaa rajeynaya inaan iskula fahnay. shuruudaha lagaaga baahan yahay waa shuruudahaas. haddaan kuu soo koobay inaad tahay qof faa'iido sameyn kara, in qofka akoonka khidmadiisa aad bixiso, national ID card iyo aqoonsiga inaad haysato, iyo warqadii addresska proof residency aad haysato. haddii aad Soomaaliya joogtana waxaad u isticmaali kartaa warqadda Swift code-ka adigoo bangigaaga weydi doontid, ama sida bank statement haddii aad weydisid warqadaasni way aqbalaan oo waa noo soo diri kartaa ayagana. so qodobka xigo aan gudubno. qodobka xigo Blue X qaybta xayeysiinta ah. su-aashan dad qaar way fahansan yihiin, dad qaarna ma fahansano, laakiin markaa fiiriyey waxaa aad iyo aad u faro badan dadka aanan fahansaneyn. waxaa rajeynayaa haddii aad fiidiyogan daawanayso qaybtan marka la soo gaaro, haddii aad fahanto in adoo Blue X akoonkooda ka ganacsanayo aad marketing sameyso, lacag aad akoonkaaga ka helaysa mid ka badanna aad ka hesho. so haddii aan iskula fiirino, shirkadda waxay ogashahay ama qof waliba uu leeyahay affiliation link wax la dhaho, ama link qofka oo marketing shirkadda ugu sameyn karo oo qof kale ugu diri doono. so haddii aan si fiican oo aan kugu sharxo, qaybtan waxay leedahay 3 darajo uu qofka gaari karo asigoo linkiga xayeysiinka uu leeyahay la wadaagayo asxaabtiisa. qof waliba iska diiwaangeliyana wuxuu ku heli doonaa $100. okay, marka haddii aan ku fahansiiyo waxay tahay qaybta affiliation linkiga, qof waliba oo shirkadda iska diiwaangeliyo wuxuu heli doonaa akoonkiisa linkigaas. qof allaala qofka asxaabtaada ka mid ah haddii aad u dirto uu iskaga diiwaangeliyo waxaad heli doontaa $100. hadalkayga si fiican loo wada fahmaa rajeyna. qof waliba oo shirkadda kusoo biiray wuxuu heli doonaa linkigaas waa linki oo qofka xayeysiin ama referral uu sameynayo. qof asxaabtaada linkiga hadda u dirto iska diiwaangeliyo $100 ayaa heli doontaa. marka darajo ayaa jirto, 3 darajo ayaa jirto oo qofka ku gaari karo. haddii 3daas darajo ay gaarto, darajo walbana aad lacag ku heli doonto. marka darajada koowaad waxay tahay, waxaa lagaa rabaa inaad keento 5 qofood iskana diiwaangeliyaan linkiga aad adiga leedahay, waxaadna heli doontaa $500. marka qof waliba oo linkigaaga iska diiwaangeliyo oo asxaabtaada ka mid ah oo aad shirkadii faahfaahintooda u sheegto, kadibna linkiga iskaaga diiwaangeliyo, qofkaasi waxaad ku heli doontaa $100. marka waxaa lagaa rabaa darajada koowaad 5 qofood inaa linkiga iska diiwaangeliyo. 5taas qofood markay iskaga diiwaangeliyaan waxaad heli doontaa $500. waa darajadii koowaad aad taagan tahay. $500 laba option ayaa kuu furan. optionka koowaad ayaa waxay tahay in $500 aad la soo baxdo oo akoonka markaas aad haysato oo aad ku darsato, kadibna lacagtaada la soo baxdo, ama in aad dhahdo subscription-ka aad iskaaga bixiso, aad dhahdo $500 subscription-kayga ahaan rabaa inaan iskaaga bixiyo. marka labadaas mid waa sameyn kartaa. darajada labaad waxaa lagaa rabaa inaad keento 10 qofood iskana diiwaangeliyo linkiga aad adiga leedahay. waxaad heli doontaa 10% qof waliba oo bixiyo lacagta subscription-ka. waa wax aad iyo aad loo heli karin oo shirkadaha kale aysan bixinin, kaliya ay bixiso shirkaddan Blue X. qodobkan darajada koowaad waxaan kuugu sheegay in $500 $500 uu qofku heli doono. qodobkan 10 qofood kale ayaad keeni doontaa darajada labaad markaad joogtid. darajadan labaad 10kan qofood aad keento oo linkiga iska diiwaangeliyo, qof walba oo bixiyo lacagta subscription-kiisa ama lacagta uu isku diiwaangeliyo oo akoonka uu ka rabo oo bixiyo, waxaad ka heli doontaa 10% lacag ah.
marka fursadan waa fursad aad iyo aad u muhiim ah, laakiin dadka Soomaalida aysan inta badan aysan la soconin, aysan fahansanaynin qaybtan xayeysiinta ee shirkadda ay bixiso. So 10% kaas markaad hesho, darajada labaad ayaa joogtaa, waxaad u gudbi doontaa darajada ugu dambeyso ee loo yaqaano mentor. darajadan waa darajadii ugu dambeyso, wax shaqo ma qaban doontid, waxa kuu shaqeyn doono 5 qofood oo darajada koowaad aad keentay iyo 10 qofood oo darajada labaad oo aad keentay, oo ah 15 qofood adiga ku hoos imaanaya oo linkiga iska diiwaan gelinaya. marka qoraalka taa ku aqriyo, darajadan waxaa loo yaqaanaa mentor. wax shaqo ah ma sameyn doontid, waxaad heli doontaa ugu horeyn 5% qof waliba ay sameeyaan oo lagu soo diray dadkii ay iga sii keeneen, lacagtaadana bil walba waad heli doontaa ilaa 10%. marka waxaad heli doontaa ugu horeyn 5% qof waliba oo withdrawal sameeya. Okay, qof waliba oo withdrawal sameeya waxaad ku leedahay 5%. marka qofkaas withdrawalka sameynayo 5% ayaad ka qaadan doontaa oo faa'iido ah. midda labaad waxaad heli doontaa ayadana 5% oo qof waliba subscription-kiisa oo bixinayo. qof walba oo isdiiwaan gelinayo asigana waxaad ka heli doontaa 5%. sidoo kale waxaad heli doontaa ayadana lacag ay shirkadda ku siinayso oo commission ah. marka 5% kan iyo labadan 5% oo ah qofkii adiga aa keentay oo bil waliba lacagta isdiiwaan gelinta bixiyo 5% ku leedahay. qofkii adiga aa keentay oo target ka gaara asina 5% ayaa ku leedahay, balaas ay ku sii dheer tahay shirkadda commission ay ku siinayso. marka labadan lacagood waxay ku socon doontaa ilaa 15 qofood aa keentay 10 qofood ka mid ah ay active yihiin. waxaan ka wadaa 15 qofood aa keentay, haddii 10 qofood ay ka mid ah ay bil waliba oo shaqaysanayaan oo akoonkoodii iyo waxooda ay haystaan, oo bil walba akoonka cusboonaysiinayaan, withdrawal sameynayaan, adigana wax shaqo aa qaban doontid ma jirto. bil walba lacagta aan kuu sheegay 5% kan iyo 5% kan kale oo 5% oo subscription qofka bixinayo iyo 5% ka ah oo qofka withdrawal sameynayo plus commission oo shirkadda ah ayaad heli doontaa adigoo aan waxba qabanin. so waa fursad aad iyo aad u cajiib ah, waa fursad aad iyo aad u weyn ah oo qofka uu ku sameyn karo asigoo waxba shaqo aanan qabanin, kaliya linkiga asxaabtiisa uu la share gareyn doono, iska diiwaan geliyaan, markay iska diiwaan geliyaan uu lacagtaas heli doono. marka waa fursad aad iyo aad u weyn, waxaan rajeynaa qof walba inuu ka faa'iidi doono qaybtan. marka presentation-keena intuu ka xig yahay waxaan u gudbi doonaa wax su'aalo ah. marka haddii aad su'aal qabto waad u baahan tahay in su'aal iyo wax kale lagu weydiiyo, oo u baahan tahay su'aal iyo wax aad weydiiso, qaybta comment-ga ah noogu soo qor, halkaas ayaa kaaga soo jawaabi doonaa. sidoo kale waxaad ku soo biiri kartaa groupkeena Telegram-ka, asigana description-ka ayuu yaalaa. groupka Telegram-ka hadda kusoo biirtid, halkaas waxaa kaaga horeeya dhammaan traders-ka shirkadda, halkaas asina su'aalo baad iga soo weydiin doontaa, su'aalahaaga iyo waxaagana waan kaaga jawaabi doonaa. marka waxaan rajeynayaa in dhammaan xogta intaan idinku soo gudbiyay uu qof walba fahmi doono, oo si fiicanna u fahmay. haddii aad su'aalo iyo wax qabtana fadlan soo booqo Telegram-keena. haddii aad rabto inaad shirkadda iska diiwaan gelisane, shirkadda website-keeda waxaa soo dhigi doonaa qaybta description-ka, halkaas iskaga diiwaan geli. waxaan rajeynayaa in dhammaan xogta iyo waxaan idin siiyey oo shirkadda ku saabsan inaad si fiican ugu fahantiin. fadlan haddii aad nagu cusub channelka subscribe saar si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay oo shirkadda ku saabsan. soo qaybteeni ugu dambeysay waa gunti iyo gunaanadkii. waxaan jeclahay dhammaanteen inaad ka faa'iidaysateen macluumaadka halkan aad ku soo gudbiyay. halkaas ayuu inoo ogyahay maanta cashirkeenii iyo macluumaadkii ku saabsanaa shirkadda Bluefix. waa tan iyo kulanti dambe oo wacan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.